السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. داود يالكسو دوادا برنامج كيني مداشا قويهانكا وعلى بحليادان وكالات كلا سعودان شاشد عالمي هون كيبل تي في. برنامج كي يا مانتا مرتي waxaa igu xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddiga tartamada xiriirka kubadda cagta bariga bartamaha Afrika sidoo kalena ka tirsan guddiga fulinta ee xiriirkaasi Cabdiqani Saciid Carab. mudan ugu horeyn ku soo dhawaaw barnaamijka madasha aqoonyahanka ee Home Cable TV. waa ma santaa ku dhawaad su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxa ay tahay waxa taa gudoomiyaha guddiga tartamada ee bariga bartamaha Afrika magaalada Nairobi waxa ka socda tartankii kubadda cagta ahaa ee bariga bartamaha Afrika. tartankaasi meeqa wadan ayaa ka soo qayb gashay markii ugu horeysa? waa ma santaa tartankan waxa ka soo qayb galay 12 wadan zoonkan oo bariga bartamaha Afrika 12 wadan ayaa micnaha ka xubin 12 kaas wadan xubinta ka ah waxa kaliya hadda ka maqnaa Djibouti 11 kale way ka qayb galeen waxaana sida aan ku soo darnay oo la marti qaaday dalka Zambia oo aan xubin ka ahayn bariga bartamaha Afrika laakiin hore uga han jiray marka 12 wadan ayaa joogta oo tartanka ka qayb galaysa dalka Soomaaliya 12 kaasi wadan waa ka qayb sanad kastana waa ka qayb galaa ilaa naqsan ay ka qayb galay tartankan xilliga burburka masahadu bilaabay inta badan Soomaaliya marna ma aysan ka baaqan tartamada bariga bartamaha Afrika xilli wadanku burbur ku jiray ilaa hadda way imanaysa Soomaaliya waxay ka qayb galkooda aad u badnaa xilliga burburku ka qayb galkooda aad u badnaa xilligii hore ee dawladda dhexe ay jirtay ka qayb galkooda iska yaraa saas oo badnay laakiin xilligan burburku dhacay marnaba lagama baaqan inta aniga aan hadda aan ka warqabo ka qayb galka Soomaalida joogto ah mar walba ka qayb galaan haday noqoto dhinaca qaramada haday noqoto dhinaca kooxaha labadaba waxa ka dhawaajisay dalka Djibouti inuu ka haray tartankan oo ka soo qayb galo xilligan maxaa sababa taas waxay ku fiican tahay in oo xiriirka kubadda cagta oo la weydiiyo Djibouti sababtay u baaqdeen laakiin kulay way ka soo qayb gali jireen oo imaan jireen waxayna kamid ahayn wadamada sida joogtada u yimaada laakiin sida hadda aan ogsoonahay dalkooda hadda wax lagu abaabulayaa ciyaaro oo ay ka qayb galaan jasiiradaha oo wadamada isku yiraahdo dawladda Djibouti ay marti qaaday abaabulkaas inay ku jiraan waa ka warqabnaa laakiin sida saxda waxa waaye in bal ayagan inta aad la xiriirtaan aad weydiisaan mas'uuliyiintooda sababtay ugu soo qayb galayaan laakiin waxaan ognahay waa taas inay ka soo qayb gali jireen laakiin hadda aysan imaan ma waxaa jira caqabado sanadkan idinka hor yimid waxaana tahay gudoomiyaha guddiga tartamada ee xiriirka kubadda cagta bariga bartamaha Afrika ee qabashada koobkan caqabado markasta wax la qabanayo caqabad waa iska jirtaa oo dhinacyo badan ay ka iman kartaa sanadkan oo dalka Kenya lagu qabtay magaalada Nairobi lagu bilaabay tartanka magaalooyin kalena hadda lagu ciyaari doono sida hadda Machakos kale lagu soo ciyaaray Nakuru maanta la aadayo hadii la yiraahdo Mombasa lagu soo ciyaari doono Kisumu sidoo kale to caqabadaha kale ugu weyn ee hadda soo food saaray tartanka bariga bartamaha Afrika waxa weeyaan dhinaca diyaar garowga oo macnaha ay sheegay qabanqaabada gudaha oo xoogaa yar liidatay waxa keenana ay tahay macnaha sponsorkii la heli jiray waqtiyada hore oo aan sanadkan helin sanadkan yaani problemka ugu weyn uu ahaa cidii wax maalgelin dhinaca maalgelinta aad u liidatay caqabad weyn taas ahayd laakiin hadda wax xoogaa waxa moodaa in la soo kabsaday walow sidii la rabay si wali ahayn haddana waxyaabaha oo naga go'ana waxay tahay mar haddaan guddiga fulinta ku jirno in tartanku uu qabsoomo waa mid muhiimka ah oo wadamada yimaadaan oo tartanku baaqan midaas waa mid ujeedada koowaad ah tan xigtana markaas waa sponsor sax in la helo marka sponsorka ayaa caqabad ugu weyn ahayd welina macnaha ii sheeg problem kale hadda oo jira ma jiro waan ku rajaynahay inta dhamaan inay si sax noogu dhamaan doonto insha Allah waxa tahay xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya sidee kuugu suurta gashay inaad gudoomiye ka noqoto xiriirka kubadda cagta ee bariga bartamaha Afrika adigoo ka soo jeeda dal 20 sano ka badan burbursanaa kubadda cagta sideeda kuma xirna inaa wadan weyn ka timid kuma xirna inaa wadan yar ka timid kuma xirna inaa wadan burbursan ka timid kuma xirna inaa wadan qurux badan ka timid inta Soomaalida xataa mid liita waa taas kuma xirna macnaha waxaan ka hadlayaa stage-ka Degalaadleys oo ah bariga bartamaha Afrika ani bariga bartamaha Afrika waxa xubin ka noqday gudiyadooda qabanqaabada xubin waxa ka noqday sanadkii 2000 November 2000 ka noqday ilaa haddana waa ku dhex jiray
waxyaabaha laga rabo footballkana kaliya lama fiirinayo qofka wadanka uu ka yimid hadduu wan yahay hadduu yar yahay haddii populationkiisu badan yahay iyo hadduu yar yahay kuma xiran waxay ku xiran tahay saddex waxyaabada muhiima inaad shaqadan ka qayb qaadato kow aqoontaada oo kubadda cagta inay gaarsiisan tahay inaad hawshan wax ka qaban karto waa muhiim way aragnimo inaad u leedahay zoonkaas aad ka shaqaynaysid oo waqti dheer aad ku soo jirtay mid kale waxay tahay inaad relation fiican la leedahay saaxiibtinimo fiican inaad leedahay wadamada wax dooranaya oo 12 ah saddexdaba Soomaaliya ku fiican tahay anigana kulay saaxiib fiican la ahay ayaga waqti fiican waa ku dhex jiray way aragnimo hadda oo ku dhinac way aragnimo marka la fiirina 2000 ilaa hadda ku dhex jiray waxay ku tusaysaa ina in ka badan macnaha aan ku dhex jiro 13 sano inaan ku dhex jiro ay ku tusaysaa taas oo bariga bartamaha Afrika ku dhex jiro waxaan u maleynaa intaas qofku ku dhex jiray waa aragnimo uma dhimana xaq weyn u leeyahay inuu u tartamo positionada kala duwan ee bariga bartamaha Afrika ay leedahay marka dalkeena ha burbursanaado laakiin anaga qalbigana ma ka burbursanin aqoonteedana waa leenahay marka waxaan leenahay waa sameyn kartid waa gartay markii laga soo tago gudoomiyaha tartamada inaad tahay waxa kala tahay waxa ka mid tahay gudiga fulinta xiriirka kubadda cagta bariga bartamaha Afrika xilkaas gudiga fulinta ka haysa muxuu yahay asagana sidaba bariga bartamaha Afrika gudiga fulinta 6 xubnood waay sanadkiina sida xeerka qoran oo yaalo waxay tahay in sanadkiiba 2 sano mar la tartamo ani waxaan ka mid noqday gudiga fulinta 2007 ayaa ka mid noqday oo doorashadii ugu horeysay Tanzania ka dhacaysay aan xubin ka noqday haddana waxaan ka qayb galay 26 bisha hadda oo dhamaatay November waxaan ka qayb galay oo aan candidate u ahaa macnaha gudigaas fulinta alxamdulillah waan ku guuleystay waxaan ku tartamay ilaa 8 wadan ayaduna waxay daba taagan tahay inta hadda aan ku sheegay oo ah way aragnimadii aqoontii ina u leedahay ina dadka relation la leedahay ay ku arkaan qofka bixi kara inaad tahay 8 qof aan ku tartamaynay anigana waxaan ka mid ahaa 2007 oo markii saddexaad markii afraad hadda aan doorashada ka qayb galay oo ayadana aan ku guuleystay marka taas waxay ayadu ku tusaysaa dalkeena dhibaatada haysata waa gaar in dad ka soo dhex bixi karaan la tartami kara dawladaha kale in la helana ayadana waa muhiim marka kulli wadada la sameeyay ka xogayahan maxaad is leedahay muddadii burburka dalka uu ka jiray xiriirkiina oo qabsoomay wala xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wuxuu jiray anoo dhalan oo jiray oo xilligii sida taariikhda lagu hayo isticmaalka uu jiray xilliga xorriyadda ka dib uu jiray hortaan dad maamulay maanta anaga joogna biritada dad kale iman doono hadii Ilaahay raaxo inta aniga aan hadda ka ogaanay waxaan ku beeray xiriirka kubadda cagta Soomaaliya 1993 ilaa hadda si oo waqti buuxa aan uga shaqeynay xaalado kala duwan lagu shaqeeyo iska dhib badan laakiin ilaa hadda waa ka shaqeynay waxyaabaha is dhihi karo waa u hirgalan xiriirka kubadda cagta xilliga burburka waxaan is leeyahay xilliga nabadda marka la fiiriyo dadku xilliga nabadda laakiin xilliga dawladda dhex jirtay iyo hadda marka la isku fiiriyo kubadda cagta Soomaaliya hadda ay horumarsan tahay waxaana ka taaban karaa dhowr meelood xiriirka kubadda cagta xilliga dawladda dhexe ma lahayn xeer u degsan oo kubadda cagta dalka lagu maamulo ma lahayn la isma dooran jirin oo dadka hagaaya kubadda cagta dalka dad la doorto ma ahayn waxa u dhisnaa dalka 10 kooxood oo kaliya 10 kooxoodna wasaaradii hoos tagayeen ma jirin private oo kooxa ah oo dadku leeyihiin ma jirin ciyaartooydu waxay listed ka ahaayeen wasaaradda ay joogaan ay mushaarka qaadanayeen ma jirin heerarka koowaad iyo labaad iyo saddexaad koox u tartamay ma jirin heerka koowaad kaliya dalku lahaa 10kaas kooxood kaliya baa heerka koowaad ciyaar jirtay heer kale oo la ciyaar kar ma jirin intaas waa xilliga dawladda dhexe xilligan burburka ee waqtiyada aniga aan ku soo biiray uu markaas hogaaminaya Allah u naxariistay Faraxsin Diko dadkii ka shaqeynayaan ahayn waxaan xasuustaa kullayba in constitution la sameeyay macnaha xeer u gaar kubadda cagta la sameeyay 25 kooxood hadda u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta waa is doortaan awal ma jirin heerar kala duwan la ciyaaraa oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad waxa arkaysaa kooxo 2 sano ka hor heerka koowaad ahaa oo heerka saddexaad galay dadaal yaridooda kuwa heerka saddexaad ku jiray oo heerka koowaad yimid oo dadaalay qaran ma jirin oo heerar kala duwan oo sanad kasta baxa dalku uu yeeshay in qaramo ka duwan ay baxaan sida kan seniorka ah oo qaranka weyn inuu baxo
under 17 da'dooda kuwa 17 ee ka hooseysa inay tartamaan kuwa da'dooda ee 20 jir ka hooseyso Olympic Games in laga qayb galo oo 23 jir ka hoos ah shirarka caalamiga inaan tageeno seminaarada in laga qayb galayo oo aqoonta dadka yani waxaan aaminsanahay kulaybo xilligan burburka kubadda cagta talaabo aad u qurxoon ay qaaday waxa kale oo kamid ah in ay kubadda cagta maanta ay ku mashquulsan yihiin in ay link fiican leeyihiin ama xiriir fiican leeyihiin gobolada dalka oo goboladii hadda ayagana system in ay isdoortaan ah la barayo marka isbeddelka kubadda cagta aad u badan yahay waan aaminsanahay inuu hadda badan yahay waqti waan soo laabanayna minta gobolada kooxaha Serie C, Serie B iyo Serie A marka la yiraahdo tiradooda marka la isku daro adoo mid u kala sheegay waa imisa shanala Serie A meeqa ah 8 kooxood ayaa heerka koowaad ah 8 kooxoodna waa heerka labaad 9 kooxoodna waa heerka saddexaad saas shan kaas kooxood ayaa waxay soo dooranayaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ma nidaamka doorashada saas maahan xeeran qabna oo degsan xeerkeenana ay waadix ku tahay sida la isku dooranayo iyo waqtiga la is dooranayo iyo cid xaq u leeyahay wax doorato iyo kan soo sharaxayo nooc uu noqonayo qaabka loo dooranayo tirada wax dooraneysana kooxaha kaliya maahan gobolada ku jira waxa kale oo ku jira ururo dhisan sida ururka garsoorka ururka macallimiinta ururka ciyaarta ururo dhisan wax waa doortaan marka dadka kullu wax bay doortaan okay maamul walbo dhisan kullu dhaliishiisana waa wataa wax qabadkiisana waa wataa dadkii idin dhaliila waxa ay sheegayaan in maamulka idinka aad isku koobteen dadkii idin dooranayana ay yihiin kooxahan idinka aad samayseen arrintan waxa jawaabaysaa walaahi cid dhayso waxa fiicnaan in TV-ga dood ma loo qabto nala hor keeno isla fadhiisano sida aqoon iyo cilmi ku dhisan aan u doodno waa jecelnahay waa dareema in la dhaliilaayo sababtoo waxa leeyahay wax qabo waa lagu dhaliilaayo waxba qaban ma lagu dhaliilaayo ana waxaan aaminsanahay inaan wax qabanay ninka aaminsan inaan wax qaban waa jecelnahay inaad dood qabatiin oo nala soo hor fariisiyo oo si nidaam ah oo xeerarka isboorti waafaqsan aan u doodno waa fiican tahay wixii dhaliil aan leenahay waa qaadanayna hadday jirto laakiin maamulkiina markii la fiiriyo waqti dheer soo jirteen dhaliishaas xoogaa inay wax ka jiraan soo lama qaadanayo haddiiba wax idin bedelay aan la arkin walaahi ani koleyba xeerarka isboorti intaan ka bartay qofku inuu waqti dheer shaqeeyo dambi inay tahay umaleyn maahay laakiin waxaan aaminsanahay qofku markuu waqti dheer shaqeeyo inuuba experience ay tahay oo loo sii baahan yahay inuu sii shaqeeyo marka waqtiga gaaban qofka shaqeeya wax ma qaban karo laakiin qofku waqtiga dheer shaqeeya waayo qofka loo baahan yahay dhigi karo qofkan waa arag adduunkana hadda waa aragtay markii qof uu shaqo raadinayo waxaa la weydiiyaa CV-giisa ama background-kiisa la raadiyaa waxaa ka mid ah wuxuu raadinayaa inuu leeyahay experience inuu leeyahay marka aniga experience inay dhawitaan u maleynayo waxaad ku magacaabantiin oo aad tihiin xiriirka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya sax ku magacaabin waana waa tihiin Soomaa dalka Soomaaliya waxa uu gudbay federalism oo in maamul goboleedyo la sameeyo dabcan idinkana matalay maamul goboleedaas iyo xiriiradooda wixii ka imaanay Soomaa gobolada qaar waxay idin soo jeedinayaan dhaliil ah in ciyaartoydii xataa markii la soo xulay laga tago inaan laga warqabin goboladaas iyo banooniga ka jira iyo dadka ciyaaraya oo dhan arrintaas maxaa wajahaysan idin wala horta marka hore sporti waxyaabaha oo mamnuuca ka wax kamid ah politicska ka mamnuuc ka sida hadda sheegtay either oo federal oo inuu jiro inuu si jirinba anaga wax xeerarka noqosay ama waxaan ka shaqeynayna siyaasadku ma jirto laakiin midna ka shaqeynayna waxay tahay kubadda cagta ama mas'uul ka nahay inay dalka gaarto dadkuna ay si oo cilmi aqoon uga wada faa'iideystaan waxyaabaha hadda ay siyaasiyiintu dalka ay wax ku maamulaan ama ay ku dhaqmayaan anaga xeerarkeena absolutely mamnuuc ka tahay oo ah dadka in oo wax loogu qaybiyo nidaam oo hayb ah in wax loogu qaybiyo constitution-kan aad ugu soo horjeeda anaga saddex qof oo isla dhalatay xiriirka way maamul karaan hadday aqoon u leeyihiin wax ay ka qabanayaan shan ciyaartoy isla dhalatay kubadda cagta way ka ciyaari karaan qaranka hadday aqoon u leeyihiin oo loo baahan yahay marka adduun waxa anaga aan fiirino kubadda cagta waa tayada iyo waxtarka qofka meesha uu ka yimid qofku muhiim ah taas waxa waaye dadka aaminsan in waxaan lagu qaybinayo hayb waxaan dhihi lahaa inay xogaa ka waantoobaan oo la aado la akhriyo xeerarka oo isboorti u yaalan la akhriyo waxa ku yaalana la fiiriyo oo ah waxa muhiimka ay tahay tayada qofka waxtarkiisa in la qaato muhiim ah meesha ka yimid hadduu macaan yahay hadduu ciyaartoy hadduu maamul yahay waa loo baahan yahay qofka wax taraya la rabaa haddii hadda ka soo qabo for example gobolka jubbada hoose maanta laga helo 6 ciyaartoy oo qaranka wax taraya haddana isla shan waa isticmaalayna option dhahaya lama isticmaali karo ma jiro laakiin dadkeena waxa ku raagay nidaamka hayb wax ku qaybsiga ee dawladdeena ku raagay kaas ayagana dadkan mentality-gooda ku raagay
laakiin annaga waxaan rabnaa inaan dhinaca kale waa la mid manihin annaga dhinaceenna waa aqoon iyo waxtar iyo wada tashi waan ku fahmay gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka mid yahay meelaha aadka looga qadariyo kubadda cagta dalka Soomaaliya taariikh dheerna ku leh taariikh soo jireen dheerna ku leh kubadda cagta ee dalka Soomaaliya xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya intiisa burburka hadda waxa uu samaystay xiriir u gooniya ka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ahaan idinka xiriirkaas uu gobolka samaystay warta gobolka Jubbada Hoose gobolada dalka ka mid yahay history ama taariikh kubadda cagta waa leeyahay oo waliba dhinaca ciyaar gobolada iyo ciyaartooyda hore ciyaar jirtay intaba rag qaranka xataa dalka soo galay xataa way ku jireen taas wax saxiix ah waay doorashada ka dhacday gobolka Jubbada Hoose anaga qayb weyn aan ku leenahay in doorashadaas ay dhacdo taladeena ku leenahay in la is doorto waxa kamid ah taladeena in dadku qofka ay rabaan ayaga ay doortaan doorashada hadda markii qabanayeen si sax ah ula soconay waa ka qayb galnay aniga ku xigeenkayga xogeyaha ah ka qayb galay oo doorashadaas goobjoog ka ahaa waxaan ka maamulinay sida doorashadaas u dhacayso waana doorashada dhacdan waa mid oo si sax ah isku doortay oo degmooyinka gobolka ay ka soo wada qayb galeen marqaatin aan ka ahayn aana taageersanahay si isku doorteen kaas waa nidaamka kubadda cagta midkan ka soo horjeedna waxay tahay nidaamka u magacaabista ah waxaan rabnaa dadka qofka ay rabaan wax u wadi kara in ay doortaan kubadda cagta dhaqankeedu kaas waa iyo xeerkeeda waa gartay markii ay Jubbada Hoose waa gobol ay soo samaystaan maamul gobolada kale dalka dhan ay sidaas oo kale soo samaystaan iyo xiriirka guud ee dalka Soomaaliya sidee wada shaqeyn kartaa wada shaqeynta ka dhaxaynaysa sideenoo wada shaqeyntu waa caddahay xiriirka kubadda cagtu xeer guud uu leeyahay laga aqoonsan yahay FIFA ay aqoonsan tahay qaaradan ay aqoonsan tahay kan bariga bartamaana ay aqoonsan yihiin carabta oo xubin kana ay aqoonsan yihiin goboladana xeerkaas ayay u yaala dalka ay isticmaalayaan annaga waxaan xaq u leenahay in gobolada meelo badan ka caawino dhinaca aqoonta aan ka caawino dhinaca xeerarka aan ka caawino dhinaca seminaarada kale laga caawiyo tartamada inaan ka caawino laakiin marka ay is dooranayaan ayagu way xaq u leeyihiin inay annaga nala soo xiriiraan oo aan u fasilid gareyno wixii xeerarka iyo nidaamka isku dooranayo kale inaan u fududeyno laakiin qofka ay dooranayaan waa sida ay gobolku dadkiisa qofka ay jecel yihiin inay doortaan annagana waan ku saaciideyna taas xiriirkiinan marka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xiriirka ka dhaxeeya tuleega anaga waxa wada banaana shaqadeena waa sida uu xeerkan noo ogol yahay inta xeerkan uu noo ogol yahay inaan ku dhaqdhaqaaqno ayaan ku madax banaan inaan shaqadeena wadana u madax banaanahay laakiin dalka ma ka madax banaanin dalka waa deganahay waa dalkeeni dawladana waa dawlad dalka u dhisan waa taas waa mid wada shaqaynta naga dhaxaysana way fiican tahay oo relation waan leenahay wasaaradda laakiin dhinaca kubadda cagta weli waxaa maqan kaalinta dawladda way maqan tahay oo ah waxaan dhihi karaa dhinaca dawladda kaabayaashii la rabay wadamada kale hadda waa aragteen oo aan la tartamayn oo haddaan hadda tusaalahaan usoo qaato hadda ciyaaraha Soomaaliya inta u joogtaa laba wadana la ciyaarno wadan kalena hadda weli waa la ciyaari doonaa wadamada aan la ciyaarayno macallimiin waxay wataan professional ay wataan mushaarkooda uu ka bilaabanayo $10,000 kiiba waxa bixina dawladooda bixisa garoomada loo dayactiray dawladooda u dayactirtay qarankooda investment la galiyo kaliya sanadkii qaar half million la galiyo ay ka badan waxa galiyo waa dawladooda lagama maarmo dawlad laakiin annaga wili kaalinta dawladda waa banaanta gaabkaas waa gaab naga maqan waaye laakiin wada shaqaynta annaka dawladda aan leenahay iyo relation aan leenahay fiican okay maxaa isleedahay marka hadii dawladda aad garabka heli lahaydeen qaranka Soomaaliya kubadda cagta isbedel nooc ah ku imaalaha walaahi hadda in qaranka Soomaaliya sida uu ku socdo waa qaabka xiriirka kubadda cagta kaliya u wado oo cid ku saacidaysa habeeraatay aysan jirin kaalinta dawladdan kaalin weyn waay oo banaan waxaan isleenahay hadii kaalintaas dawladda oo maqan ay soo buuxsanto waxaan aaminsanahay meesha hadda joogno meel ka fiican inaan tagayno oo sida hadda qaramada kale supportiga ay ka helayaan dawladooda daahame meeshaas email ka weyn gaaraan annagu hadda iswadna kaligan ayaa harkaan nimid haddii caawin fiican dawladda laga helo ay dawladdu ay sportiga wax geliso waxaan dareensanahay oo aan weliba aaminsanahay oo nala dhageysto oo waxyaabaha naga maqan si cad nala weydiyo wax ka maqan meesha lagu buuxiyo wada tashina uu yimaado oo waxaan aan ka wada shaqeyno waxaan isleeyahay booskan boos ka fiican aan gaari doonaa weliba bariga bartamaha Afrika maahne tartamada Afrika inaan u gudubno aan rajo weyn ka qabnaa markaas dawladdan waxay ku horeeyay markii dawladda dhexe Soomaaliya burburtay waxay ahayn dawlad ku meel gaar ah dawladdan ayaa dawlad rasmi ugu horeyso wali waxyaabaha aad tabanaysaan in wax linkala qabto inta dawladda la fadhiisateen kala hadasheen kulay kaalintaas waxa u qaabilsan dawladda wasaaradda oo dhisan
oo howlaan ay ku ogtahay wasaaraddana way ka warqabtaa dhibaatooyinka jira iyo baahida jirta inta way ka warqabaan barnaamijkaasna dee wasaaraddu saaran yahay inay cidda ka sarreysa ay u geeyaan laakiin sidaan ugu fasirna kadib waxba naguma soo noqon laakiin waa kala hadashay idinka waa gartay aan usoo laabanna xulka qaranka ee dalka Soomaaliya waxa uu aadaa safarro mar walba la ciyaarayo dalal dibadda ah xulkaas qaab nooc ah ayaa loo soo xulaa ama kooxaha dalka laga soo xulaa ama gobollada laga soo xulaa ma ciyaartooyda dibadda laftirkooda lagu soo dali karaa qaab nooc ah ayaa loo soo xulaa marka hore xul marka la xulayo nidaam buu leeyahay inta xul la xulin waxaa ka horeeya macallimiin in la helo oo xulkaas wada xiriirka awoodihiisa waxaa ka mid ah inuu marka hore haddii ciyaar dibadda la aadayo inuu u magacaabo macallimiin shaqadaas wada wixii ka dambeeya shaqadaas waxaa xor u ah sida ciyaartooyda loo soo xulanayo midka wax u taraya shaqadaas iyo kan wax u taraynin iyo ciyaartooyda ka qayb gali doonta noocay yihiin taas waxaa awood u leh xulitaankeeda macallimiinta uu xiriirku xulo macallinkuna wuxuu fasax u yahay hadduu ciyaartooyda dibadda ka keensanayo iyo hadduu kooxaha ka qaadanayo iyo hadduu gobollada ka keensanayo intaba asagay u furan tahay annaga waxaan leenahay awoodda magacaabistiisa laakiin soo xulitaanka ciyaartooyda technically macallimiinta iskale wayna u fasaxan yihiin ciyaartooyga ama kooxa u rajis garaysnaado ama gobol ha joogo ama dibadda ha joogo ama dalka ha joogo ayaga awood u leh inay keensadaan waana xiriirkuna wuu ku taageerayaa qof shakhsi kasta oo Soomaali ah oo ciyaartooy ah meesha uu ku noolaado ama dalka gudihiisa ku noolaado ama dibadda ha ku noolaado ee wax ka tari kara shaqada la qabanayo waxa waa u furanta inay ka soo qayb galaan Soomaalidu waxay tiraahdaa dhubo waa lagu dhubartaa markii inta Soomaaliinta dibadda u soo baxdaan mar walbana guuldarro xulka dhabarka loo saariyo ka xiriir ahaan inaad inta macallinka la hadashaan aad tirahdaan maalin walba sidaan ma soconayso ee isbedel waa in la sameeyaa oo waxa jira ciyaartooy waaweyn oo Soomaaliya ka ciyaar qaaradda Yurub professionalna in ciyaartooydaas ka ciyaar sidoo kale Afrika in ciyaartooydaas lagu soo daro xulka si isbedel muuqda ay u keenaan maxaa diiday inaad soo fargelisaan macallinka waa horta fargelintu marna waa sax marna waa qalad macallinka laftigiisa wuu jecel inuu badiyo macallin kasta wuxuu jecel yahay markii xul loo magacaabo inay kooxdaas guul gaarto macallin kasta jecel taas waa waxaan ognahay macallin aan aaminsanahay inuu guul darro rabo ma jiro qof kasta sumcadiisa sharaftiisa wuu jecel inuu kor u baado tan dadweynaha jecel yihiin oo ah in ciyaartooy Yurub ku nool iyo ciyaartooy Yurub ku nool laakiin sida uu nool yihiin contact intee leh dalka la leeyihiin mar rabaan horta inay dalka ka ciyaaraan kooxay la joogaan kooxda inuu ka soo tago waqti uu ka soo tagi karaa kooxdiisa ila waa nin oo ku jira heshiis ku jira kooxeed kooxa lacag ku bixisa heshiis ku jira uu saxiixay u ciyaara nationality kale waa haysta ciyaartooyda dhan kooxay u ciyaaraan hadan qarankooda u ciyaaraan waa u ciyaaraan laakiin waa inuu jiraa rabitaan ciyaartooy horta kooxaas dibadda jooga waa inuu jiraa rabitaan ka imaanaya ciyaartooyga anaga waxaan tababar ku sameynaa dalka gudihiisa qof Soomaali adig kule macnaha ana dalka ma iman karo waxa ka fiil karta intee la ekaan karaa ashtaas waa inuu nationalism jiraa oo qofkan ka go'an tahay inuu dalkiisa u ciyaaro waa inuu ka jecel yahay kooxda lacagta siinaysa inuu dalkiisa ka jecel yahay taas ku daydan walina ay la xiriirtay waa isku daynay waa la xiriirnay wili waxa jira dad oo macallimiina oo noo magacaaban oo wadamada Yurub jooga oo noo raadiyay ciyaartooyda Soomaaliyeed ee talentiga quality leh ama koox la joogo ama isla joogin inta badan intay awoodaan way sameeyaan dadka Yurub jooga oo hadda ciyaarihii horeba ciyaartooy ka soo qayb gal waa jireen oo wadamadan Yurub ka yimid way jireen haddana wax tarkoodu sidii aan rabnay waa noqon waayay kuwa koox la joogan waa jiraan kuwa kooxaha way la xiriiraan problem ku jira waxa weeye ninkii wuxuu ku leeyahay inaan aniga Soomaali aado aniga sometimes wuxuu ku leeyahay waalidka miya ogola mar wuxuu ku leeyahay aniga lacag qaata ma bixi karo mar wuxuu ku leeyahay kooxda fasax ma keeni karo marka caqabadaha ku aadan dhinacaas ciyaartooyda dibadda waa kuwa inta badan u baahan in meesha ay joogan looga soo xaliyo waxaas dhan ka muhiimsan rabitaan qofka Soomaaliga inuu jecel yahay inuu dalkiisa u ciyaaro kana jecel yahay kooxda uu la joogo haddii laakiin waalidka asagu dhalay Soomaali ma maqli karno oo ay aaminsan yihiin qofkii Soomaali ma inuu dhimanayo daas waxa problem meesha la kamid tahay laakiin xiriirku badda cagtu very open u yahay in qof kasta Soomaali dibadda ku nool inuu wax ka taro qarankiisa inuu ciyaaro wax anaga aan leenahay ma wax dadka wada leeyihiin wadawad waxaad dayactir xoog la ku samayseen oo standardka caalamka aad ka dhigteen Stade Conis ee magaalada Muqdisho maxaad is leedahay haddii ciyaartooyda maalin walba ay ku tababartaan garoonkaas horyaalkii la ciyaari jireen ay ku ciyaaraan maxaa isbedel oo ku imaan kara ciyaartooyda qaranka Soomaaliya inay hadda qaabkay u ciyaaraan ay ka bedelaan garoonka magaciisa waa Banaadir Stadium
كونس حلق استعمار كلو يغني لكن هذا هو بنادر ستاديوم إن isbedel horta kubadda cagta afar waxyaabood ku keeni kara in isbedel la sameeyo waa in horta dad haysataa garoomo haysataa stability haysataa macnaha deganaansho inay meesha leedahay midda afraad waxay tahay in sponsor haysato afartaas marka isku hesho waa ka hadli kartaa mawduuca ah horumarka inaa wax horumarinayso waa ka hadli kartaa anaga wadankeena deganaansho ma jirin qof kasta marqaati ka ah hadda si hore u dhama alxamdulillah garoon ma jirin hadna kii horeeyay aan dayactirnay dad waa haysanay sponsor laakiin weli ma jiro xiriir kubadda cagta cid $100 ku saacida ma jirto haba yaraatee hadda haddaan dadkii la helay deganaanshaha waddanka uu fiican yahay alxamdulillah garoonkiina la helay waxaa moodaa inaa hadda 3 qayb inay buuxsantaa moodaa oo qaybta dhiman ay tahay sponsorka ay tahay qaybta dhiman inta yar hadda aan dareemen waxay tahay haddii garoonkaas lagu sii shaqeeyo oo ciyaartooydu waqti u helaan ilaa 6 bilood ilaa sanada way caddaa in isbedel imaanayo isbedel xoog la imaanaya sababta ah in haddii marka horeba aadan haysan standardka caalamku isticmaalaya garoonka aadna rabto inaad caalamka la tartanto wax oo aad u kala fog waaye hadda laakiin waxaan is leenahay standardka garoomada mid ka mid waa helnay kaas keliya uma filna hadda kuwa kale aan rajeynayna inaan sameyno isbedelku marka waa step by step way talaab loo socdaa hadda laakiin xiriir kubadda cagta yani horumarku hadda sameynayo dhaqaaq fiican uu sameeyay oo in garoonka la dhameystiro laguna shaqeeyo waxaana wixii kar marka waxay tahay in asagii ciyaartooyda tababar fiican lagu siiyo macallimiinta aan soo kordhino kuwa aan haysanay kuwa kale ku soo darno wada isticmaalno kadibna meeshaas ay imaado performance-gooda inuu kor u soo kaco haddii ilaahay raado waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka xulka qaranka Soomaaliya wuxuu ku ciyaaray dalkani Kenya wuxuuna ciyaaray koobka bariga bartamaha Afrika adigoo soo koobaya maadaama xulkii uu guuldarro la kulmay dad badan oo Soomaaliyeed ay ku daawanayaan baaqaaga ugu dambeeya aad u dirayso dadka ku daawanaya muxuu yahay marka hore baaqan u diray horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan Soomaalida oo dhan meel kasta ay ku nool yihiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisa intaba waxaan ugu mahadcelinayaa inta ku mashquulsan jacaylka kubadda cagta anaga mararka qaar oo wax naga sheegayaan dadkeena waa aqbalaynaa waxaan u aqbalaynaa mas'uuliyadda ahayna nafaraysa in aqbalno in oo tilmaamo fiican horta inay siiyaan waa rabnaa inayna dhaliilaan waa jecelnahay laakiin ayna dhaliilaan dhaliisha wax dhisaysa waxna lagu dhaliilay wax bedeli karaa in horta taas nagu waa soo dhaweynaynaa marka baaqan horta u diray waxay tahay kubadda cagta Soomaaliya u dhisan tahay cid gaar iska ma lahan cid gaar oo iska leh kubadda cagta Soomaaliya ma jirto qof kasta oo Soomaali ah oo xiiseynaya jecel kubadda cagta ayaa qayb ka ah xaqna u leh inuu ka qayb qaato hadduu ciyaartooy yahay hadduu macallin wax bartay yahay hadduu nin maamul bartay yahay hadduu dhaqaalayahan yahay hadduu aqoon-yahan yahay oo micnaha shuruucda u bartay inta way u furan tahay inay qarankooda ay micnaha ay taakulayaan kii aqoon ku saaciday inuu ku saacido kii maalid ku saaciday inuu ku saacido kii wax kale oo tala u haya inuu ku saacido kii raba inuu asagu si oo volunteer inuu shaqeey rabana waa u furan tahay marka waxaan leenahay dhaliisha annaga ana dhaliilaysaan annaga aqbalayna laakiin wixii dhaliisha lagu bedeli lahaa ayaga ha keenaan dadkana dhaliilaya wixii ay ku bedelin lahayn ha keenaan oo ama aqoona ama maalgelina taas waa horta fariinta kuwaad aan diraayo fariinta labaad diraayo waxay tahay ciyaartooyda Soomaaliyeed ee dibadda ku sugan ee gobolada jooga intaba xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan dhaqdhaqaaqa kubadda cagta dalka uu leeyahay waa u furan tahay fadlan la soo xiriir xiriir kubadda cagta email uu leeyahay website uu leeyahay telefoon uu leeyahay way u furan tahay qof laga xiga ma jiro cid wakiil ka noqon kartana ma jiro kuwa Yurub joogana wakiilada Yurub aan ka sameeyna la xiriiraan kuwa aan fursad u helina anaga nala soo xiriiraan laakiin xiriir kubadda cagta waxa ka go'an horumarka kubadda cagta cid kastana albaabkan kubadda cagta u furan tahay inuu ka qayb qaato nooc kasta oo asaga uu ka matali karo dhaqdhaqaaqa kubadda cagta taas waa fariinta aan direyno qarankeena in la taageerana wax furan waaye cid furan waa wax furan hadda Nairobi intaan joognay wala dad saacid waa jiraan oo mahad celinayna sida safaaradda Soomaaliyeed kale sida hooyooyin Soomaaliyeed oo isla ganacsato ku oo kaleeto qaranka inta u yimid ay dhiirigeliyeen cid ka xigtana mar waa qarankoodii inta kale dibadda joogtana waa u furanta ayagana sidoo kale marka albaabkeenu waa furan yahay
laba arrin buu u furan yahay wuxuu u furan yahay in nalagala qayb qaato horumarinta kubadda cagta wuxuu kaloo noogu furan yahay cid kasta oo aqoon iyo talab u haysana inay xiriir kubadda cagta u sheegaan inta waa u furan tahay waan ku soo dhaweynaynaa laakiin ogaada inay Soomaaliya ay Soomaali kaliya leedahay Soomaaliyana aysan cid kale u maqnayn inaan wax iska sheegno waxa ka fiican inaan wax isku sheegno anaga aad ay u mahadsantahay mudane Cabdiqani Saciid Carab daawadayaal intaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeeni madasha aqooyahanka oo caawaran ku wareysanayay xogayaha guud ee xiriir kubadda cagta dalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga tartamada xiriir kubadda cagta bariga iyo bartamaha Afrika sidoo kalena ka tirsan guddiga fulinta ee bariga iyo bartamaha Afrika intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni madasha aqooyahanka dhanka farsamada iyo kaamirada waxa iga saaciday Cabdicaziz Ibrahim Ali intaan ku kulmi doono barnaamijka mid lamid ah waa Cabdi Fataax Maxamed Cilmi idin la sidaasiyo nabadgelyo